hay-adda samafalka caalamiga ee Amoud Foundation ayaa waxay deeq ka koobneed qalabka lagu seexdo guddoonsiisay 27 arday ah oo dhigta dugsiga dhagoolayaasha ee magaalada Boorama. Munaasabadii deeqdan ay hay-adda Amoud Foundation ku guddoonsiinaysay ardaydaasi dhagoolayaasha ah ee dhigta dugsiga dhagoolaha ee magaalada Boorama, goobjoog ka ah maamulka wasaaradda waxbarashada ee gobolkan Awdal, macallimiinta iyo maamulka dugsiga dhagoolaha ee magaalada Boorama, waalidiin, arday iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Boorama. Ugu horeen munaasabadan waxaa ka hadlay madaxa hay-adda Amoud Foundation ee Somaliland Mudane Cabdiwahaab Ciga Axmed. Waxa uu faahfaahin ka bixiyay deeqda ay maanta guddoonsiiyeen dugsiga dhagoolayaasha ee magaalada Boorama waxa ay ka kooban tahay dhalinyarta ama ardayda dhagoolayaasha ah hoy ay leeyihiin oo ay ku jiraan 27 wiil oo hoy ku jira fushaantoodii ustayaashoodii iyo gooyaashoodii ay duliga lahaayeen nin kasta chiefkiisii oo complete inaan u keenay taas baan wareejinayaa oo aan ku wareejinayaa maamulka dugsiga mas'uulkana ka ah carruurtan ma aha runtii markii koowaad ee Amoud Foundation ay dugsigan timaado ama waxay ku caawiso waxaan yar dul joogsan lahaa gaariga aad aragteen talagalka iyagu wuxuu ahaa maalintii aan qabanqaabinaynay inaan u keeno ardayda indhoolayaasha ah ee iskuulkan dhigta in lagu soo qaado laguna hooyo. waxaad ogtihiin qofka laxaadkaas leeyahay wuxuu u baahan yahay hagitaan in la hago maadaama marka ay adag tahayna in la hagaa waxaan isku daynay in aan bas u keeno guryahooga lagaga soo qaado iskuulka lagu keeno markay duruustoodu dhamaatana lagu celiyo. waxaa sidoo kale ka mahadceliyay deeqdaasi maamulaha dugsiga dhagoolayaasha ee magaalada Boorama Mudane Faarax Talan. waxa uu hoosta ka xariiqay inay baahiyo xoogan ka jiraan dugsigaasi. markaynu waxaan ku haynaa in America iyo Canada lafteedaba ay niman yiraahdeen iskuulka dhagoolayaasha ayaan mas'uul ka nahay hantidana dadka kaga urursadaan. marka anagu halkan imika media waxaanu cadeynaynaa nu sheegaynaa dad iskuulka wakiilka inaysan jirin baan lagu sheegaynaa. cidii iskuulka danu haysa ay wuxuu qabanaysaa waxaanu ka codsanaynaa inay u yimaadeen macallimiinta dugsiga iyo dugsiga maamulkiisa wixii ay qabanayaana dadweynaha hortiisa ay u keenaan. waan idin ducaynaynaa wax kale ma hayno iskuulku kharash male hanti kale male hantidiisu waa waxaad arkaysaan furaasta iyo miisaska aad meesha ku arkaysaan way hantidiisu. laakiin waxyar waxaan rabaa idin qaybsado ama u mahadceliyo macallimiinta ardayda waxa qabanaysa waa waxaan la xisaabi karin. waxaan rabaa waxyar inaan idin fasiro hadda faanteen suuradii la akhrinay wax weyn ay iga hoysiisay wali nafta ninka xakameeyo oo celiyo wuxuu leeyahay oo dhib adduunka hawadeeda ka ilaaliyo jannadu leeyahay ninka adduunka israacsiyo naartu leeyahay. hadda halkaan lagu akhriyo waa xakamaysan naftiini ilmihii caawinteen waxaa tarteen jannada leedahay. macallimiinta saasa u mahadcelina. teeda kale waxay tiray aayadii ashiyatan oo duxaha adduunkana ordina isku dagaaleno waa inta salaada casirka iyo maghribka u dhaxaysa ka yarwaan ama 60 sano noolaa ama hanolaanin waa wax yar oo micno lahayn. hay-adda Amoud Foundation ee fadhigeedu yahay magaalada Dallas ee dalka Mareykanka ayaa horay waxay iskuulkaasi dhagoolayaasha ee magaalada Boorama guddoonsiisay gaari bas ah kaasi oo lagu qaado ardayda iskuulkaasi wax ka barta. Cabdi Fitaax Axmed, Somali Channel, magaalada Boorama.